faahfaahinta warkani waxa magaalada Stockholm nooga soo diray wariyahayaga Cabduqaadir Salwa. garyaqaan Cabduqaadir Axmed Maxamed oo garyaqaan Soomaaliyeed oo ummadda Soomaaliyeed wuxuu qabtay ummadaha kalena caawina ayaa waxa uu degan yahay wadankan Sweden. garyaqaanka ayaa waxa aan booqasho ugu tagnay magaalada Katrineholm halkaas oo kula kulmay jaaliyada Soomaaliyeed isla markaana uu ku soo bandhigay waxqabadkiisii. kulankiina sidan ayuu u dhacay. garyaqaan Cabduqaadir Axmed Maxamed oo garyaqaanada Soomaaliyeed ku sugan dalka Sweden kana shaqeeyay arrimo badan oo bulshada siyaasi kamida xisbiyada siyaasadeed ee Sweden. bismillahir rahmaanir rahiim. anigu magacaygu yahay Cabdicasiis Nuur Axmed oo ku hadlaya magaca dhammaan jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool Katrineholm kuna hadlaya magaca aqoonyahanada reer Katrineholm. waxaan maanta sharaf weyn oo inaan soo dhaweeyo walaalkan garyaqaan Cabduqaadir Axmed Maxamed. Cabduqaadir الله يجعل فرن كسودو على كاترينهولم غريقان عبد القادر وغريقان صوماليات وحفظا وقبت أمد الصوماليات. الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد علمي السياد محمد كار وحن رواينا السودوية ونكسودوية دعدا أنا هاي هي مقع عن لا هاي هي وحن لدمع سنة هاي إن كسودوية هي جعلها غريقان عبد القادر أحمد محمد ونن أقويانا ونن هيرانا ونن سوماليات oo aqoontiisa in laga faa'iideysto ayay saxan tahay dal kasta iyo dad kasta iyo deegaan kasta barwaaqadiisu waxay ku xiran tahay inta aqoonyahankiisu la yahay. marka dalka Soomaaliyeed ayuu wuxuu u yahay ximin muhiima waa nin abukaata ama xeer ilaaliye ama يعني dhaqan aqoon dhan walba hadii loo yeesho ninka aqoonyahanka oo magac weyn leh anigoo kamid odayaasha Katrineholm ayaan ku soo dhaweynayaa magacayga sidaan horeyba u sheegay waxaan leeyahay soo dhawow gacmo furan ku soo dhawow anigoo ku hadlayo magaca gudoomiyaha warmacad Sweden jaaliyada waxaan halkan ku soo dhaweynayaa garyaqaan Cabduqaadir Axmed Maxamed oo aqoonyahan munaasabadan intuu ku soo dhawow Cabduqaadir Katrineholm. Bismillahirrahmanirrahim. aad iyo aad baad mahadsantihiin soo dhaweyntaad soo dhaweyseen waa soo dhaweyn qiimo qaayale dadka halkan isugu yimid kulligeen aad iyo aad ayaan ku mahadinayaa. sidii hore loogu dhawaajiyay waxaa la yiraahdaa Cabduqaadir Axmed Maxamed ana ahay ilaa haddan garyaqaan saldhigiisu yahay magaalada Nyköping gobolka Sörmland oo Katrineholm hadda aan taaganahay ay ka tahay degmo kamid ah. waxaan rabaa inaan idin sheego in ilaa muddo dheer aan ka howlnaa daafacaadda dadweyne badan oo shisheeye waxa Soomaalida u taqaano ajnabi oo ay ugu badan yihiin Eritrean, Ethiopian, dad badan oo Carab iyo dad badan oo lamid iyo jaaliyeynta Soomaaliyeed magaalo kasta joogan oo aan muddo dheer aan ka caawinayo waxyaabo badan ay kamid yihiin tusaale ahaan socdaalka dad badan ay malaga qaatay oo maaragtay aan ka howlgalay. waxaa kaloo kamid tusaale ahaan waxyaabo badan oo go'aamada maamulka waayo go'aamoyinka maamulka ayaa lug ku leh tusaale ahaan ilmaha dadka laga qaadanayo waayo waa go'aan maamuleed oo maxkamad ay gaarto laakiin wuxuu ku salaysan yahay xeerka maamulka dalkan waxa loo yaqaano Förvaltningsrätt. laakiin dad badan oo waxaa jira oo aan ka caawiyay sida shirkado loo furto ay ka mid yihiin Suuriyiin ay ka mid yihiin dad kale oo Afrikaan ay ka mid yihiin dad Soomaaliyeed. waxaa jirto 6 sano ka hor 7 sano ku dhawaad markii Soomaalida laga xiray ma aragtay waxaan loo yaqaan xawaaladaha waxaan daafacay dahabshiil Qaran Express iyo ka iyo Olympic. waa Cabduqaadir Salwa wadankii Sweden.